وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيس وحنبار واجب كيسا وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو بسم الله الرحمن الرحيم أرضي ومركلية برنامجكي كبرو تي في قرنكا يورادي هرقيسة ومع عبد الرحمن موسى وماددي كيمستريغا chapter kii aynu ku jirnay waxa uu ahaa organic chemistry waa 10kii saddexaad chapterka shanaad xagga bixida raadiyowga iyo TV-ga waa 10kii sagaalaad fasalkuna waa form 3 waxaynu maraynay oo inoogu dambeeyay alkenis baynu bilownay waxa kale inuu dhiganay definitionka alkenis waxaynu dhiganay propertieska ama physical propertieska alkenis maanta waxaynu dhiganaynaa ama 10kan waxaynu bilaabaynaa chemical properties of alkenis chemical properties of alkenis waxa la yiraahdaa waa reactions of alkenis yahay reactions of alkenis marka waxa isku mid ah chemical properties waxa isku mid ah chemical properties iyo reactions chemical properties iyo reactions chemical properties iyo reactions chemical propertieska ama reactionska hadaba alkenisku ay sameeyaan way badan yihiin laakiin kuwa inaga la inooga baahay inaynu dhigano waxa kamid ah ka koowaad waxa la yiraahdaa combustion waa gubasho marka combustion reactionada ay sameeyaan waxa kamid ah combustion reactionada ay sameeyaan waxa kamid ah nooca la yiraahdo substitution reactionada ay sameeyaan waxa kamid ah substitution reactionada ay sameeyaan waxa kamid ah elimination reactionada ay sameeyaan waxa kamid ah cracking reactionada ay sameeyaan waxa kamid ah cracking reactionada alkenisku ay sameeyaan waxa kamid ah rearrangement ama isomerism waxa kamid ah isomerism shanta reaction aynu halka ku qornayba alkenisku ay sameeyaan alkenis undergo combustion reaction substitution elimination cracking and isomerism reaction ka la yiraahdo isomerism isagoo magaca un baynu dhiganaynaa laakiin isagoo reaction lama dhigto classka form 3 ga laguma dhigto marka isomerism ka ma dhigano elimination kana ma dhigano saddexda kale waynu dhiganaynaa marka waa combustion waa mid kale yiraahdo substitution iyo cracking marka waxaynu ka bilaabaynaa marka ka koowaad ee la yiraahdo combustion of Soomaali waxa la yiraahdo gubasho marka alkenisku way gubtaan they burn with oxygen bay ku gubtaan and they produce carbon dioxide and water deedna waxay soo saaraan carbon dioxide iyo biyo nooca reaction kaasoo kale marka uu dhaco waxa loo bixin doonaa complete combustion waa marka ay soo saaraan baynu nidhi alkenis waxaynu nidhi alkenis burn alkeniski baa gubanaya marka alkenis burn when enough oxygen is applied when enough oxygen is applied waa marka lagu daro oxygen ku filan and they produce dabeedna waxay soo saaraan carbon dioxide and water waxay soo saari doonaan carbon dioxide iyo biyo marka hadaba kanoo kale u dhaco when alkenis burn with enough oxygen and they produce carbon dioxide and water this kind of reaction is called complete combustion nooca reaction ka waxa loo bixinayaa waa complete combustion
waa gubasho dhamaystiran markaa complete combustion waxaa loo bixinayaa complete combustion marka inuu complete combustion noqdo waxaynu ku garanaynaa waa carbon dioxide iyo biyo ma soo baxeen waayo hal tusaale aynu samaynaynaa tusaalehaan waxaynu haysanaa methane gaaska la yidhaha methane waa gas alkeniska waa xabadda koowaad ba weeye methane gas baa waxaynu ku daraynaa oxygen waa gas waa lagu gubay dabeedna waxa soo baxay mid la yidhaha carbon dioxide isaguna waa gas plus water vapor biyuhuna markaa waxay u jiraan in a form of gas waayo intaasoo kale markay soo baxaan plus energy imiga uma baahnin intaasi markuu soo baxo waa alkankii aynu rabnay inaynu gubno oxygen baa lagu daray waxa soo baxay carbon dioxide iyo biyo haddii labadaas kuu soo baxaan nooca reactionka waxaa la odhanayaa waa complete combustion macnaha waa gubasho dhammaystiran haddii wax ka duwani ay soo baxaan tusaalahaan waxaa la gubay isla methane baa la gubay waxa weeye waxaa lagu daray oxygen marka lagu daro oo gas ah borodhagii baa wuxuu noqday tusaale ahaan carbon keli ah mae wuxuu noqday carbon monoxide mae waxaa soo baxay wax kaloo la yidhaahdo unburned hydrocarbons oo loo soo gaabinayo UHC unburned hydrocarbons dabeedna kuwaasoo kale markay soo baxaan waxaa la odhanayaa incomplete combustion markaa maxaa kala duwanaansha ah marka koowaad waxaynu nidhi haddii oxygen lagu daro alkanes dabeedna ay soo saaraan carbon dioxide iyo biyo nooca reactionka waxa la yidhaha complete combustion waayo if not haddii markaa aanay soo bixin labadaasi carbon dioxide iyo biyo haddaanay soo bixin oo uu soo baxo carbon monoxide ama carbon monoxide ama unburned hydrocarbons markaasoo kale waxaa la odhanayaa incomplete combustion waa ka labaad markaa noocaa labaadna waxaa la yidhaha incomplete combustion waa gubasho aan dhammaystirnayn waayo haddaynu eegnay slideska aynu haysanno waxaad arkaysaan ka koowaad waa chemical propertieski ama waa reactionada ay sameeyaan alkeniska number 1 they do combustion waxay sameeyaan combustion ama gubashadii baa waxaynu u kala qaadnay A iyo B waa complete combustion iyo incomplete combustion complete combustionka maxaynu ku qeexaynaa marka complete combustion means waxay la micno tahay burning waa gubid marka an organic moleculekii organicii baa la gubaya sidii chemical sameeyay methane oo kale baa la gubaya marka in air baa lagu gubaya which air means oxygen baa lagu gubaya particularly enough oxygen ku filan baa lagu gubaya and producing dabeedna maxay soo saari doonaa carbon dioxide and water vapor labadaas hadday ku soo baxaan labadaas indicator labadaasaynu ku garanaynaa nooca reactionka waxa loo leeyahay complete combustion incomplete ku waa maxay markaa incomplete ku waa maxay any product will give you or any product indicates you incomplete combustion rather than carbon monoxide carbon dioxide and water marka labadaa hore laga reebo alkane molecule la gubo oo uu soo baxo waxaan labadaas ahayn waxaa la odhanayaa incomplete combustion waayo haddaba incomplete combustionka gubashada aan dhammaystirnayn maxaa keena waxaa keena afarta qodob ee halka aynu ku haysanno tusaale ahaan not enough oxygentii baan ku filnayn lagu gubay waxaan leenahay unburned hydrocarbonkii la gubay iyaan muxuu ahaa aan toos u wada guban waxaa kaloo keeni kara the reaction is rapid the reaction is fast reactionku hadduu degdeg u dhaco ma dhammaystirmo waa yahay waxaa kaloo dambeeya all hydrogen atoms remember alkanes are hydrocarbons they contain only carbon and hydrogen atoms so all hydrogens in an alkane atoms are converted waa la rogay maxaa loo bedelay markaa into water instead of saying what carbon dioxide some carbon atoms can form carbon baa markaa samaysmi doona ama waxaa samaysmi doona carbon monoxide baa samaysmaya ama carbon oo solida marka taasoo kala dhacdo waxaa la odhanayaa incomplete combustion marka haddii arday layna weydiiyo what is caused incomplete combustion we can list these 4 factors kuwaasaynu list garayn karaynaa markaa waxay noogu xiga markaa reactionka labaad reactionkii hore wuxuu ahaa combustion reactionkii labaad wuxuu ahaa combustion reactionkii noogu xiga waxaynu nidhaa waa substitution waxaynu nidhi 3 reaction baynu dhiganaynaa 5 meesha inoo yaala alkanes remember bear in mind they do combustion waxay sameeyaan combustion substitution elimination cracking iyo isomerism marka waxaynu iska saarnay labadaa reaction ba dhigana baynu eliminationka iyo isomerismka saddexdaa reaction ee kale aynu dhiganaa marka combustionka waynu sameynay hadda waxay noogu xigay inaynu sameyno substitutionka markaa substitution way
substitutionku muxuu kii hore kaga duwan yahay kii hore wuxuu ahaa gubasho substitutionka waxaa la yidhaha isku bedel substitutionka waa isku bedel substitution waayo substitutionku waa maxay waxa weeye when alkane molecules is removed single or say two hydrogen atoms from an alkane molecule and replaced with another atom is called substitution reaction marka hal hydrogen ama laba laga saaro yaa laga saaraya alkanekii atom kalena lagu bedelay nooca reactionka waxaa la yidhaha substitution xagga inorganiga waxaa la yidhaha displacement marka waxaynu haysanaa alkane moleculekaasi kii horeba soo qaado methane baynu haysanaa gaaska la yidhaha methane waa ka koowaad waxaynu ku darnay markaa midka la yidhaahdo chlorine tusaale ahaan chlorine baynu ku darnay chlorine isagu waa halogen group isaguna waa gaas kale weeye chlorine dabeedna waxaynu rabnaa inaynu isku bedelno laba chlorine baan halkan ku haystaa alkanekunkana wuxuu ka kooban yahay 4 hydrogen marka hydrogen iyo chlorine baan isweydaarinayaa inaan hal hydrogen ka saaro hal chlorine ku soo daro waayo waxaan sameynaa markaa waa CH3 Cl plus HCl way kani muxuu sheegayaa markaa methane baynu haysanay methane wuxuu ka koobnaa hal carbon iyo 4 hydrogen waxaynu ku soo darnay chlorine molecule waa diatomic laba atom buu ka kooban yahay labada atom midkood wuxuu bedeli doonaa hydrogenada 4 hydrogen mid ka mid ah halkii marka hore aan ku haystay hal carbon iyo maxay 4 hydrogen haddar waxaan haystaa 3 hydrogentii afraad waa la bedelay marka labadana isweydaartay waxay isweydaartay hydrogen iyo chlorine labadaas ay isweydaartay dabeedna waa substitution mid baynu meesha ka saarnay mid kalena waynu soo gelinay nooca reactionka waxaa la yidhaha substitution reaction waa mid labaad haddaynu samayno tusaale ahaan waxaan haystaa C2 H6 waa ka labaad ee la yidhaha ethane waxaan haystaa C2 H6 waa ethane waxaan ku darayaa ethane isna waa gas waxaan ku daray halogen kale oo la yidhaha tusaale ahaan bromine ama say fluorine oo kale waxaynu ku darnay fluorine baa isna gas ah fluorine baynu ku darnay same principle with the previous one sidii kii hore oo kale fluorine labada fluorine mid ka mid wuxuu bedeli doonaa hydrogenada mid ka mid ah deedna maxaa soo baxay waxay noo soo baxaya hydrogenadii mid ka saar awal hore 6 bay ahaayeen deedna wuxuu noqonayaa C2H5 kii lixaad waxaynu ku bedelnay fluorine waayahay dabeedna halkaas wuu inoo dhan yahay xagga kale maxaa inoo soo baxay hydrogen iyo fluorine markaa maxay isweydaartay hal hydrogen iyo hal fluorine marka hal hydrogen laga saaro atom kalena la soo geliyo moleculekii alkaneka ahaa nooca reactionka waxaa la yidhaha substitution waayo waxaan samayn doonaa isla labadan example mid ka mid ah inaynu ku sawirno displayed formula si loo sii fahmo carbonka methane oo kale waxa weeye waa hal carbon iyo 4 hydrogen waa hal carbon iyo maxay 4 hydrogen waxaynu haysanaa hal carbon iyo 4 hydrogen chlorine isaguna wuxuu jiraa maxay waa chlorine single bond chlorine intaasaynu haysanaa chlorine single bond chlorine dabeedna laba dabar baa la jebinaya waa dabarka u dhexeeya carbon single bond hydrogen iyo dabarka u dhexeeya chlorine single bond chlorine marka labadaa la jebiyo maxaa soo bixi doona waxa soo bixi doona labada chlorine mid kamid wuxuu qabsanayaa carbonkan hydrogenkuna wuxuu qabsanayaa chlorinkii laga tagay dabeedna waxa soo bixi doona waa hydrogen single bond waxaynu haysanaa waa hydrogen single bond carbon single bond waa hydrogen maxaa halkan ku soo biiray chlorine plus hydrogen single bond chlorine labadanu bay isweydaartay formuladii hore waxaa molecular formula kan imika aynu isticmaalayna waa displayed formula marka waa isku mid marka chlorine baa meesha soo galay hydrogenna waa laga saaray nooca reactionka maxaa la odhan doonaa substitution reaction marka waa isweydaar maxaa la isweydaarinayaa halogen group iyo muxuu ahaa hydrogen alkanku marka hore hydrogen buu ka koobnaa waxaa lagu soo daray marka maxay halogen group baa lagu soo daray dabeedna mid ka mid uu meesha ka saaray keligii ma qaadan karaya maya ma qaadan karayo sababtoo ah waynagii marka hore nidhi casharkii hore aynu kusoo dhiganay alkanes are saturated hydrocarbons way buuxaan baynu nidhi every possible location is attached by what hydrogen atom meel walba macquula waxa kaga dhegan baynu nidhi hydrogen marka haddaad u fiirsatay slideska waxaynu haysanaa maxay waxaynu haysanaa substitution reaction of methane baa maxaa lagu sameynayaa with chlorine molecule marka haddaad u fiirsato waa chemical aynu qoraynay waa carbon iyo 4 hydrogen laba chlorine baynu haysanaa waa diatomic
labadaa chlorine maxay samaynayaan mid ka mid ah wuxuu bedelayaa hydrogenada mid ka mid ah dabeedna waxa soo baxay marka hore waa methane chlorine molecule dabeedna maxaa ku soo baxay methyl chloride ama chloromethane xagga dambe maxaad ku haysataa hydrogen chloride chlorine-ka waxaynu ku qornay midabka buluuga ah dabeedna methane wuxuu ku qorayay waa madow dabeedna halkii labada chlorine ahaa mid baa chlorine dabeedna wuu isbedelay maxaa isbedelay markaa hal hydrogen iyo hal chlorine nooca reactionka waxaa la yidhaha maxay substitution reaction waayo waxaa jira mid kaloo la yidhaahdo markaa cracking mid kaloo la yidhaahdo markaa maxay cracking waa kii saddexaad markaa ee alkenisku ay samaynayeen cracking waa nooca saddexaad waxaa la yidhaha cracking nooca saddexaad waxaa la yidhaha cracking nooca saddexaad waxaynu u bixinaynaa cracking waayo crackingka af soomaali waxaa la yidhaha waa burburin ama kala jebin maxaa la burburinaya ama la kala jebinaya waxaan odhanaynaa waa splitting or breaking down a large molecule to smaller ones molecule weyn baa waxaa laga dhigayaa kuwa yaryar ama qurubyo yaryar marka it is a kind of decomposition reaction waa nooc ka mid a reactionadii la odhan jiray decompositionka ama kala jebinta ama burburinta waayo nooca reactionkan wuxuu gaar u yahay industryga ama warshadaha tusaale ahaan waxa weeyaan waxaa loo samaynayaaba waa for commercial purpose marka waa ujeedo ganacsi ama la rabo in laga faa'iido tusaale ahaan waxay soo saareen decane waa 10 carbon 10ka carbon hal wax baa loo isticmaalaa decane markay decane tahay laakiin decane baa oo waa kii tobnaad waa ka 10 carbon le iyo 22 hydrogen waxaa laga dhigi karayaa 3 product ama 2 product baa laga dhigi karayaa marka labadaa product laba use ama laba application bay yeelanayaan saa daraadeed maxay sameeyaan qolooyinka warshadaha ama soo saaro organic compoundsku large molecule baa waxay ka dhigayaan to smaller ones for commercial purpose so this kind of reaction is called cracking of alkenes baa la yidhaha marka wuxuu hoos tagaa decomposition reactionkii waxaynu tusaale soo qaadanaynaa midka la yidhaha decane markaa waa maxay waa midka ka kooban 10 carbon iyo 22 hydrogen 10 carbon iyo 22 hydrogen iyo maxaa laga dhigayaa waxaa laga dhigi karaa mar 2 product mar waxaa laga dhigi karaa 3 product waayo waxaan ka dhigaynaa 3 product ka soo qaad waxaynu haysanaa C2H4 waxaa laga dhigay ethene waxaa laga dhigay mid kale waxa weeye C3H6 iyo waxaa laga dhigay C5H12 way haddaynu kuwan magaca u samayno kan koowaad waxaa la yidhaha waa alkane waa decane waxaa la yidhaha waa decane waayo kan kale waxaa la yidhaha waa ethene kan kale waxaa la yidhaha waa ethene waayo kan kale waxaa la yidhaha propene kan kale waxaa la yidhaha propene ka u dambeeyana waxaa la yidhaha pentane ka u dambeeyana waxaa la yidhaha pentane waayo maxaynu haysanay marka hore waxaynu haysanay organic molecule la yidhaahdo decane waa alkaneka ka tobnaad ka 10 carbon iyo 22 hydrogen decane waxaynu nidhi waa liquid waxaa loo isticmaali karaa shidaal ahaan waxaa laga yaabaa inaanu uses ama application kale lahayn laakiin si decane looga faa'iideeyo decane waa in la kala jabiyo marka iyadoo la isticmaalayo maxay kul ama heat iyadoo la isticmaalayo marka la kala jabiyo waxaa la soo saaray mid la yidhaahdo ethene waa alkene mid kaloo la yidhaahdo propene isna waa alkene kale iyo mid la yidhaahdo pentane isna waa alkene markaan leeyahay alkene iyo alkene waxaan ka garan karaa saafagaska kani waa ain xagga dambe kani waa in kana waa in kaa kalena waa ain dabeedna waxaan haystay hal product baan haystay marka hore ama hal maxsuul ama hal walax baan haystay halkii walax baa waxaan ka dhigay 3 walxood oo kale marka hore wuxuu lahaa hal isticmaal waayo laakiin haddeer wuxuu yeeshay 3 isticmaal oo kala duwan sidaa daraadeed waxaa lagu sameeyey cracking haddaad u fiirsato tirada kaarboonada iyo hydrogenadu way isleegihiin kaarboonadu waxay ahaayeen 10 carbon 10kii carbon xagga waxaad ku haysataa 2 xaggana waxaad ku haysataa 3 xaggana waxaad ku haysataa 5 markaad isu geyso 2 3 iyo 5 waa 10 hydrogenadu waxay ahaayeen 22kii waxaad haysataa 4 iyo 6 waa 10 12 ka ogey 22 marka intii aad haysatuun baa dib loo habeeyey nooca reactionkana waxaa la yidhaahdaa cracking marka waa reactionka saddexaad ee ay sameeyaan familiga la yidhaahdo alkaneska marka haddaynu ku noqono slideska crackingka waxaynu samayn doonaa crackingkii maxaa la yidhi cracking means splitting waa markaa waa burburin markaa a large organic molecule weyn baa markaa yaa maxaa lagu samaynayaa waa la kala jebinayaa to smaller ones kuwa yaryar baa laga dhigayaa sidii 3 imika aynu qornay tusaalahan imika halkan waxay noogu yaallay isagoo laga dhigay markaa maxay 2 laga dhigay oo laga dhigay maxay octane iyo ethene
halkii inagu saddex aynu ka dhignay waxa weeye warshada lafteeda way ku xidhantay marka hal sawirka waxaad ku arkaysaa large organic molecule waa decane haddaad u fiirsato waa 10 carbon iyo 22 hydrogen 8 carbon baa kuu soo baxay iyo 18 hydrogen xagga dambena waxaad ku haysataa ethene waa 2 carbon iyo 4 hydrogen waa isku midinkii hore midna 3 product buu lahaa midna 2 product nooca reaction kana waxa la yiraahdaa maxay waxa la yiraahdaa waa cracking waayahay arday waxa halka inoogu xiga subtitle-ka inoogu xiga waa naming ama nomenclature baa la yiraahdaa waa naming ama nomenclature kii weey hexane lixdii carbon waynu haysanaa waa hexane waayay intan way ka haarsantay waa hal carbon halka carbon isaga waxa yiraahdaa substituent ama waxa weeye substituent waa substituent waa branching waa in ku dhagana la yiraahdaa marka ku dhaganuhu muxuu noqon karaa alkane maxaa kugu dhigi karaa alkane waxay noogu dhagi karaa family kale oo la yiraahdo alkyl tusaalahan waxay naqaanay alkane halkana waxaan ku haystaa alkyl alkane-ka general formula-iisu wuxuu ahaa N2N+2 alkylku waa alkane derivatives alkane-ka laga soo minguuriyey dabeedna waa alkane laga saaray hal hydrogen baa waxa la yiraahdaa alkylku markaa wuxuu noqonayaa general formula-iisu hal hydrogen baa laga saaray waa N2N+1 kuwa la yiraahdo alkanesku waxay u jiraan in a form of chain kuwan la yiraahdo alkylisku chain way sameyn karaan laakiin waa side chain waa substituent waa ku dhagane way alkane haddaan saddexda hore sheego waxa noqonayaa waa methane saddexda hore wuxuu noqonayaa waa methane waxa weeye waa ethane waa propane saddexda ugu horeeya ama afar badhe waa butane-ka afraad waa butane haddii anigoo calaamadda isticmaalaya ama general formula isticmaalaya haddaan qor idhaahdo methane-ka hal carbon laakiin waa hal carbon waa 2 carbon 3 carbon iyo 4 carbon anigoo intaa isticmaalaya hal carbon markaan n ku bedesho waxa weeye n waa number of carbonski markuu yahay 1 times 2 plus 2 hydrogenadii markaa waxay noqonayaan 4 2 carbon hydrogenadiisu waxay noqonayaan 6 3 carbon hydrogenadiisu waxay noqonayaan waxa weeye waa 8 4 carbon hydrogenadiisu waxay noqonayaan 10 kuwan markaan qoraya hadaba side chain-ka hal hydrogen bay isdheeriyin dabeedna wuxuu noqonayaa kani waa CH3 kana waa C2H5 kani waa C3H7 kana waxa weeye C4H9 way xagga magaca kuwani waxay ahaayeen methane ethane propane butane kuwani maxay noqonayaan markaa wuxuu noqonayaa waa methyl group kani wuxuu noqonayaa waa ethyl group kana wuxuu noqonayaa waa propyl group propyl kani wuxuu noqon doonaa markaa butyl group way kuwani markaa waa alkane-kii waa kuwaynu magacaabaynay kuwana waa kuway noogu dhagan markaa kuwani waxaan leeyahay waa alkane kuwana waa maxay waa substituent ama side chain-kii way arday waxaan sameeynaa casharkaasi waynu sii wadi doonaa casharka xiga ayaynu ka dhigi doonaa waayahay arday casharka halkaasi aynu ku joojinaynaa waxaanaynu ka sii wadi doonaa casharka xiga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno